maayirka caasimadda Hargeysa oo uu weheliyo maayir ku-xigeenka caasimadda iyo xogayaha dawladda hoose iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ayaa kulan ballaaran la qaatay iskaashatooyinka kala gedisan ee caasimadda Hargeysa. kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd sidii looga qayb qaadan lahaa gurmadka abaaraha ka jira dalka. iyadoo markaa dawladda hoose bilowday gurmad ay xoolaha u gurmayso wixii socon waayeen ilaa imika aan xirfoonka caasimadda ku jiro oo xoolaha wixii ka noolaaday dawladda hoose xanaaniso muddo dhowr bilood la gacanta waxa inta dheer xoolo 8 boqol ku dhow oo iyaguna dawladda caasimadda ku sugan oo guud ahaan ka yimid markaa ilaa waqooyi iyo ilaa runtii aagan galbeedka riskiin guudaan xoolahaas waxa weeyaan xoolo dawladda dhexe iyo dawladda hoose iyo guddiga abaaruhu ay ka warhayaan dawladda hoose si joogtay biyaha iyo baadka wixii kolbaa warshaykiisa sidee loo socono shirkani waxa weeyi waa shirarkii ugu dambeeyay ee dabayaaqada dardargelinta hawlaha abaaraha markii ugu horeysay ee hawshu bilaabantay horta maayirka caasimadda iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka caasimadda ayaa shirkii ugu horeysay iyagu ka qayb qaatay oo noqday xubnihii u dhaadhacay waqooyi ee dadkii sii tagayeen sii tabaabusheeyay ee sii raray xoolihii wixii jilicda sanaana ka soo celiyay inta ka bacdi markii ay ka soo noqday maayirku iyo maayir ku-xigeenka iyo xogayaha waxa loo qabtay shir golaha ah kaasi oo la sheegaya in horta intaynaan arrimaha bulshada ama aynaan qaybaha kale bulshada gaadhin in golaha deegaanka caasimaddu ay u kala baxaan jiidaha ama meelaha ay ka jiraan abaaruhu intooda dadka wada xoolaha meel ay joogaan iyo meel ay ku sugan yihiin toona waxa weeye dadkaasi waa dadkii la midka ahaa dadkii ku dhintay waqooyiga ka baxay runtii dadaalkeenu ma yara laakiin bulshadeena laftigeedu qaybo ka mid way ka qayb qaateen oo qaybta waratada suuq oo kale bacdiyaalku waa kuwii ku wareejinay guddiga abaaraha gobolka awdal waa kuwii ku wareejinay iyagu waxa iska ururiyeen Hargeysa si ay u shaqeynaysaa way shaqeynaysaa laakiin imika waxaan doonaynaa inaan isku duubnaano oo waxeenu ay meel wada maraan. maayirka caasimadda Hargeysa ayaa si weyn ugu bogaadiyay isla markaana ugu dhiirigeliyay in iskaashatooyinka kala gedisan kaalin laxaad ka qaataan gurmadka abaaraha ka jira dalka. in hadalka inaan xageega hadalka sii badinana ma doonayno waxa weeyaan umadeena jiracsan si ay ugu gurman lahayn ayuu baan isugu nimid waxa ogaal baa u tiin idinka laftiina waa qayb ay ka saameynaysayo say iga muuqata qoladii khudradda iyo fadhida waxa weeye waa cidii ay fiirgareynayeen dadkan miyigu waxaan lahayn inagoo isu naxariisanaynaa dadkeena wixii aan u qaban doono iskaashatooyinka caasimadda intii badneed way muuqataa waxaan leeyahay ha laga qayb qalo idiblihii way muuqdaa oo iyagana ay saameynayso dee xoolihii imikaba ay saameyn badan jirto waxaan lahaa sidii aan uga qayb geli lahayn inuu cid waliba wixii ay ku tabarucaysa iskaashato waliba idna inaan xaggiina usoo wareejinaado iyada oo sida oo kalena ay xubno ku hadlayay afka iskaashatadu ay ka hadleen halkaasi isla markaana ay ballan qaadeen inay kaalintooda buuxin doonaan. inta kale waan ka qayb qaadanay waan joognaa sidaan magaa mid walba abaabulka iyo guddidu way joogtaa tan gobolka Maroodijeex ee dawladda hoose iyo maayirku ay naga soo dalbadeen dawladdeena hoose anagu salaam ahaan waxa aan ku ballan qaadaynaa 100 gadbood oo daqiiqa Abdulrahim Maxamed Yuusuf waxaan ahay gudoomiyaha iskaashatada basaska City Bus ee caasimadda Hargeysa waxaan salaamayaa maayirka maayir ku-xigeenka xogayaha xildhibaanada agaasimayaasha sida sharafta leh aynu ugu yeeray inuu yiraahdo inuu soo guuriyo dadkooda annagoo tii horena ka qayb galnay imikana waxaan ballan qaadaynaa $3,000 inaanu iskaashato ahaan bixino ayagoo qoladayna magaciisa marka waxa weeyaan arrimahaaynu isugu nimi waa saynu dadka xilli la daawado waa laga daalay oo TV-ga laga daawado sac baqtay iyo ri baqtay si waxa waa laga daalay garanaysa aadamihii baa imika xaaladoodu iska barakaysan tahay anagoo ku hadlayna magaca wadada suuqa gobanimo insha Allah ta'ala lacag baanu u caasimadda ku-xigeenka xogayaha dhammaan xubnaha dawladda hoose iyo kasoo qaybgalayaasha hawsha soo ajiibay aween in badan bay abaaruhu ina saameeyeen waa alxamdulillah rabbil caalamiin maalka inoo yeeray waxa weeyaan inaynu qaybteena ka qaadanay waa muhiim anagu shaqashada ahaan horena waxbaan u wadnay makana dib baan isku noqonnaa hadii la yiraahdo anagu keenina wixii aan soo habayna hadii la yiraahdo